madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo wafdiga uu hogaaminayay ku sugnaa caasimadda dalka Itoobiya ee Addis Ababa ayaa waxaa xafiiskiisa ku qaabilay ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed. kulanka dhex maray madaxweynaha Soomaaliland iyo ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka Itoobiya ayaa lagaga wada hadlay arrimo badan oo khuseeya danaha labada dal oo ay kamid ahaayeen xoojinta xiriirka iyo iskaashiga labada wadan ee Soomaaliland iyo Itoobiya, arrimo khuseeya amniga, nabadgelyada, siyaasadda, dhaqaalaha, arrimaha bulshada iyo horumarka dhaqan-dhaqaale ee wadamada geeska. dalalka Soomaaliland iyo Itoobiya ayaa waxa ka dhaxeeya xiriir qoto dheer oo soo jireen kaasi oo salka ku haya daris wanaag, xiriir ganacsi iyo mid siyaasadeed. kulanka dhex maray madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed ayaa waxa dhanka Itoobiya ku wehelinayay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda dalka Itoobiya iyo madaxa xafiiska ra'iisul wasaaraha Itoobiya. dhinaca Soomaaliland waxa qayb ka ahaa kulankaasi wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland Professor Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon, wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Maxamed Kaahin Axmed, wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland Dr. Saad Cali Shire, wasiirka wasaaradda ganacsiga, warshadaha iyo dalxiiska Maxamuud Xasan Sacad Saajin. waxaana kulankaasi ku soo dhamaaday guul iyo isafgarad. نجيب عبد الله تلفزيون عالمي bulsho.